السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysaan. Qodobada barnaamijka saaka aan idinku hayo waxa kamid ah madaxweynaha Mareykanka Trump oo si kulul u cambaareeyay una eedeeyay dawladaha waaweyn ee qaaradda Yurub isagoo sidoo kalena ammaan kala duldhacay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. haddaba ujeedada uu ka leeyahay hadafkaas maxay tahay? faahfaahin laga qoray warbixinadii uu jeediyay ninka Trump oo warbaahintu ay aad uga hadlayso saakay ayaynu barnaamijkeedii kugu soo gudbin doonaa. ciidanka ilaalada kacaanka Iran qaybtiisa ciidamada badda ee qaabilsan ilaalinta marinbiyoodka Hormuz ayaa saakay digniino cusub soo saaray. haddaba sidee wax u jiraan, maxaa qaldamay? tafaasiil baan iyana idinkaga hayaa. Hezbollah oo ku eedeysay Israa'iil inay jabisay xabad joojinta. haddaba waxay sheegtay Hezbollah inaanay u sii dul qaadan karin waxa ay sameynayaan ciidamada Israa'iil. haddaba qodobadaas ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. waxaa sidoo kale aan idin hayaa dhulgariir saakay aroortii ku dhuftay Venezuela oo la rumaysan yahay kumanaan dad ah inay ku dhinteen, kuwa kalena ay dhibaato ka soo gaartay, guryo badanna ay ku burbureen. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa ninkii Trump ahaa ayaa si xun u cambaareeyay una eedeeyay dalal waaweyn oo Yuruba. haddaba maxaa dhacay? xalay odaga waxaa la yiri dhowr jeer ayuu siyaabo kala duwan u kala hadlay. niman senatara oo Kongareeska ayuu dood la soo galay. waxaa fadhiya meesha xildhibaano xisbigiisa ka tirsan oo maalinkii habeen hore markii laga codaynayay afartii ka mid ahayd meeshay joogeen. ninkaan markuu soo baxay wuxuu yiri meesha dad qaldanaa joogay, dad saanaa joogay. ninkii markaa isagoo wareersan ayaa warar kala duwan warbaahintu kasoo tabisay. haddaba markaa 7 ilaa 8 bisha soo socota waxaa ka furmi doona dalka Turkiga shir madaxeedka gaashaanbuurta NATO. marka arinta shirkaasi iyo sababahaasi iyo waxa uu meesha uu ka yiri waa u tagi doonaa, laakiin marka hore waxa uu si xun u eedeeyay dawladaha Yurub. marka muxuu ku haystaa ninkaas Yurub? haddaba markaan aragno warbixin laga qoray, Trump wuxuu yiri Yurub kama aanan helin wax taageero ah xilligii aanu la dagaalamaynay Iran. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu yiri waxaan ka niyad jabay dawladaha Talyaaniga, Ingiriiska, Jarmalka, Faransiiska iyo Spain. way fiicnaan lahayd haddii ay naga caawini lahaayeen dagaalka aan kula jirnay Iran. haddana wuxuu yiri annaga uma baahnayn wax caawimaad ah oo markaa iyaga xaggooda ka timaada, laakiin waxaanu doonaynay in markaasi iyagu ay fahmaan inay yiraahdaan waan idinku taageeraynaa dagaalka. annaga toddobaadkii ugu horreeyaba Iran waan burburinay ayuu yiri. way fiicnaan lahayd laakiin haddii xulafadu ay muujiyaan rabitaankooda ah inayna caawiyaan. haddaba wuxuu yiri waxaan damacsanaa inaan ka qayb galo shir madaxeedka, inaanan ka qayb gelin shir madaxeedka gaashaanbuurta NATO oo ka dhacaya Ankara. halkaas oo ay madaxda uu soo sheegay ay tagi doonaan, laakiin waxa uu yiri waan isbedelay markii dambe waan aqbalay inaan tago. ninkaan wuxuu ku dhigan yahay dawladihii waaweynaa ee Yurub oo dhan, Faransiiska, Ingiriiska iyo Spain iyo Jarmalka iyo kulli. wuxuu leeyahay nimankaasu inay iisoo heeliyaan. oo maxaa lagugu heelinayaa? adiga iyaa ishaya 10 dawladood ma ishaysaan. waxyaabaha la yaab kale dadka falaqayaashu wax ka qorayeen waxay ahayd war adiga iyo Israa'iil isugu tagay Iran, yaa kaloo Iran soo kaalmeeyay? dawlad kaloo Iran toos ula safatay miyaa jirta? oo maxay marka kugu tagaan? ma NATO oo dhan ayaa Iran wada dilaysa? sababtay si u dilayaan maxay tahay? nimankan marka hore maxay u diideen dagaalka inay galaan? ninkan dagaalka ayuu u sheegay. Netanyahu dhigti waxa uu sheegay si Netanyahu Israa'iil dagaal u bilaabo. nimankaas marka waxay taagan yihiin annagu isbahaysi aan ahayn reer galbeed la yiraahdo. ma nagala tashatay dagaalka galis? adaa iska qaaday. ninkan marka wuxuu leeyahay nimankaanu inay wali uqdadii uu qabaa odaga
haddana wuxuu iska dhigaa maba aan u baahnayn laakiin ayagaan ka warsugayay kula oo macnaha aniga kaalmaba ma u baahnayn isbuucii ugu horreeyay waa ku kala baxay Iiraan laakiin iyaga ayay u fiicnaan lahayd maadaama aan xulufo ahayn inay xataa waa ku taageerinaan dhahaan oo markuu waa khalkhalsan yahay marka haddana sheekada kale wuxuu yidhi maadaama iyaga ay tegayaan kulaha NATO dhanba aan maaragtay ka soo horjeedo haye waaba iska dhaafay inaan tago laakiin mar dambaan go-aan gaarayo inaan iska tago markaas yuu la kulmayaa la leeyahay ninka ugu sarreeya gaashaabuurta NATO aqalka cad ugu tagay oo la kulmaya waxaa leeyahay shirka maaragtay NATO ajandihiisa wixii kaga soo qaybgeli lahayd ninka hadduu iska yimaado wuxuu rabo iska sheegaade NATOdan waa lagu kala tegay iska dhaha marka ninka marka hadalaas baa iska jeediyay laakiin waxyaabaha la yaab kale ee soo kordhay waxaa ka mid ah ninkii Erdogan ahaa ayuu ninkan ammaan kala dul dhacay iyadoo meesha la fadhiyo wuxuu eedayn u jeediyay Yurubtii kale Erdoganna sidee uu ammaanaya haddaba markaan idin tuso wararka uu Erdogan markaa uu ka yiri haddaba marka waxaa leeyahay madaxweynaha Mareykanka ayaa wuxuu sheegay Erdogan inuu dagaalka la soo gali gaaray oo markaa dhanka Iiraan dagaalkii uu markaa isagu la soo safan gaaray marka waxaan hadda u tagayaa NATO ixtiraam aan ixtiraamayo Erdogan dartiis haddaba marka warbixinta way sii socotay oo ku saabsan arrintan wuxuu leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu yiri shaacana ka qaaday in Turkigu uu yahay mid markaa u sharaxnaa dagaalka ka dhanka ah Iiraan oo markaa doonaya inuu dagaalka nala galo isagoo xusay markaa ujeedadaasu inay ahayd mid markaa wanaagsan laakiin ninka la yiraahdo Rajab Tayyip Erdogan wuxuu yiri ixtiraam aan ixtiraamayo ayaan uga qayb galayaa gaashaanbuurta NATO kulankeeda Ankara ka dhici doona Trump wuxuu sharaxay in Erdogan uu dagaalka ku sigtay inuu ka qayb galo oo markaa laakiin arinta uu ka hor istaagtay ay ahayd inuu diidanaa inuu Israa'iil nacab yahay oo uu markaa Israa'iil meelay ka dagaalamayso uu ka barbar dagaalamo haddaba Trump wuxuu yiri sidoo kale waxay u badan tahay markaasi inaan ka qayb galo waana ka qayb galayaa ayuu yiri shirka ka dhacaya halkaas NATO ay ku yeelanayso Ankara dhanka kale wax laga weydiiyay diyaaradihii Mareykanku horay ugu diideen Turkiga ee F-35 ka waran ayaa la yiri markaasuu wuxuu yiri codsiga Ankara ee diyaaradaha dagaalka F-35 iyo matooradii ay soo dalbatay diyaaradaha ahaa ee looga baahnaa diyaaradaha dagaalka ee gudaha in lagu sameeyo Trump ayaa intaa ku daray in Erdogan uu yahay saaxiib qaali ah oo leh hoggaan markaasi wanaagsan iyo ciidan xoog leh oo badan sida uu yiri isagoo xusay inuu yahay nin xooggan oo jecel dalkiisa oo shaqo fiican qabanaya marka shirka marka Ankara wuxuu dhacayaa oo NATO iskugu tagayso madaxdeeda 7 iyo 8 bisha soo socota ayuu marka halka ka furmi doonaa ninka wuxuu leeyahay shirkaas anigu wax shaqo oo ma kuli maba aadi lahayn laakiin Erdogan oo nin fiicana dartiisaan u aaday Erdogan dagaalku ay la gali lahaa uu yiri dagaalka uu la gali lahaa laakiin Israa'iil uu nacab yahay darteed ayaa markaa uu iskaga dhaafay maahane Yurubtan kale waa iga fiican way kaalmeyn lahaa kula marka maxaa laga wadaa waa ogeydeen waagi dagaalka uu socday mar Turkigu uu gantaalo Iiraan xaggeedana la ka soo rido nagu soo dhaceen ay lahaayeen markaasuu ku sigto ku leeyahay inuu isaguna gantaalo ku rido Iiraan oo macnaha uu dagaalka galo maasaa waa Erdogan markuu Israa'iil iyo Mareykan oo Iiraan garaacaya uu la safanay laakiin ninkan daduu ku dhaga hadlaya macnaha Erdogan waa nin fiican Erdogan jacayl uu u qabo gooniya meesha ma jiro laakiin nimanka Yurubiyanka ayuu rabaa inuu ku bahdilo ciidan fiican oo haysta kula xoog uu leeyahay
adiku waxba ma haysataan waa anaa igu tiirsantihiin u fiirsada hadalka beesha uu ka wado ciidankayga Yurub waa kala baxa meeqa jeer u lahaa ciidankayga waa kala baxaya Yurub hadda isdifaaci kartaan u lahaa haddana marka uu ku dhaga hadlayaa fiir wuxuu leeyahay Erdogan waa nin fiican waa nin ciidan badan haysta waa nin ciidan xoog leh haysta waa nin saas uu leeyahay adikuna waa igu hakarteen isagoo dagaalku ila gali lahaa macnaheedu niman kale ku dhaga hadlayaa marka waxa leeyahay odagu waa iska noqday ciyaar cabsulo 8 jirka waa markii xogaa 8 gala odagi marka odagi waa iska wareeraaliyay marka laakiin saas way tahay dal dhan oo xukumaayo warbaahintu way ku qasbayeen ninka wuxuu sheegay inay qaataan waaye ninka marka sheekadiisa la yaab kale halkaasaan marka kaga gudbaynaa arinta kale ee cusub saaka waxay tahay ciidanka ilaalada kacaanka Iran saakay war culus oo digniina oo ku saabsan habka loo marayo marinbiyoodka Hormuz ee soo saareen waxay raadeen maalmahan saacadihii la soo dhaafay waxaan maqlaynaa markabku iska socon karaa meeshuu rabo mari karaa dhageystadeen wareer dhageyst maraakiibta iyo shirkadaha iskale meel annaga aydaan idin dhihin mar haddaa isku martaan waxa idinka raaca idinkaa ka mas-uulin war meeshaan waa taatikaysan tahay meel walba miinaa noo taalo waay meeshaan mali laguma heshiinin oo heshiis dhaba lama jiro meeshaan markaa iska martaan hadhow miinaa la qarxda iyo sheekadaas annaga ma noo keeni kartaan digniina idin dareenaali cidda aan tala ka qaadan oo waa iska maraynaa tiraado gab soo tiraada wixii soo gaara iyagaa ka mas-uulin yaa idin dhahaa layidhi amerikaankan yidhi waa iska mari kartaan amerikaan asaa soo mari lahaa layidhi meeshaan yaa loo dhigay miinooyinka ma maraakiibtan masaakiintaa loo dhigay sheekaysid waraa dhagaystadeen ninkii waxa meesha annaga aanan mar dhihin mara meesha in la kala adkaaday horta saasaa ku fahmaysaa nimankaa meesha waa haystaan haddaba marka aan idin tuso aljaziira ayaa saakay warbixintooda ay soo saareen soo bandhigtay waxay leedahay ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay yiraahdeen marin ammaan ah oo laga maro marinka Hormuz waxaa suurtagal ah oo kaliya in la maro wadooyin Iran ay sheegtay oo kaliya meel kale lama mari karo yiraahdeen wakaaladda wararka ee Faris ayaa waxay sheegaysaa iyadoo soo xiganaysa ciidanka badda ee ilaalada kacaanka Iran saacada ka hor qaar ka mid ah dhinacyada oo aysan magac dhabin inay ku dhawaaqeen in wadooyin cusub ay iska mari karaan maraakiibta oo ciriiriga marka ay ka fogaadaan laakiin waxay siri tani waxaanu sheegaynaa waa mid aan la aqbali karin oo khatar aad u weyn ay kala kulmi karaan maraakiibta haddaba wadada kaliya ee la ogol yahay in la maro marinbiyoodka Hormuz waa tan ay Iran u sheegtay oo ay ku dhawaaqday midda kaliya la mari karaa marin ammaan ah oo la maro marinka Hormuz waa midka Iran ay sheegtay haddaba isku dubaridka ciidanka badda ilaalada kacaanka Iran waa waajib si loo maro marinka Hormuz kuwa jabinaya waa la xallin doonaa arintooda maraakiibta ka baxsan marinadan oo doonaya inay khatar bareeraan waa mamnuuc ha ogaadeen waxaana ka digaynaa inaad gabi ahaanba ka fogaato dhaqdhaqaaq kasta oo ka baxsan wadooyinka Iran ay idin tilmaantay warkaas waa war cad Soomaa meeshaan weli waa meesha de wax heshiis oo jira bale ninkan la leeyahay Trump yaa la heshiin kara waa nin gabgabla oo madax falluuq qaba maanta waru sheega berito warkalu sheega beri kale warkalu sheega yaa aamini kara ninkan hadda qodobadii lagu soo heshiiyay qaar weli la isku haystaa oo Iran ay lahayd xalay waray soo saareen arkay ay lahaayeen waxa uu madaxda Mareykanku ay kala hadlayaan anagu ma fahmin wixii aan ku heshiin waxaan ayno mid iska soo booda oo iska hadlaa saasaa jirto le maxaa jirta wixii aan ku heshiinaba maan marka dhibakaanu marka waxay yiraahdeen saakay waxaan Mareykan aan yiri waxaas filinkaas ma jiro meesha aan mara idin dhahno hadaa mari weysaan wuxuu idin ku dhacayaa weyleek adika ka mas'uulin marka sheekadaas iyaduna saakay wararka waaweyn ee cusub ay ka mid tahay waaye warka kale ee weyn ee saakay
xisbullah iyo saaka war soo saartay shalay waataan ka hadlaynay Israa'iil inay dad ku dishay wax samaysay war official soo saareen xisbullah waxay yiraahdeen 48 saac ee la soo dhaafay laba jeer ee xabad joojinta jibisay Israa'iil annagu laakiin wali waa ilaalinaynaa xabad joojintii ogaada marka la hadaa noo celisaan laakiin daroonkii yaabka lahaan bilaabaynaa yiraahdeen ha ogaadeen dadka heshiiska iyo waxa kan ka shaqeynay Washington maxaa ka socda wareegii shanaad ee wada hadallada dawladda Lubnaan Israa'iil maxay ka wada hadlayaan Israa'iil markii ay baxdo ciidanka Lubnaan sidii xuduudda loo geyn lahaa maxaa waa sheekadaas ay leeyihiin Israa'iil waxay batiri meela uga soconna male wasiirkeedii gaashaandhiga dhahay Netanyahu aan dhahay meesha ka baxayaan maxay marka sheekadu marka halka iyaduna Netanyahu waa adeeganaya heshiiskan isaguna meeshaas meel uu ka fashiliyo raadinaya meel uu ka dabacsan yahay ayuu raadinaya halkaas oo sawir raayay ka duleeliyo haddaba marka arintu soo warka xisbullah ay soo saareen xisbullah waxay yiraahdeen cadawga Israa'iil wuxuu ku tuntay xabad joojintii naga dhaxaysay marka annagu laakiin wali waa ilaalinaynaa xabad joojinta xisbullah waxay sheegeen ciidamada Israa'iil markii labaad 48 saacadood gudahood inay bartilmaameedsadeen muwaadiniinteena reer Lubnaan deegaanka la yiraahdo Kafarmaan marka waxaana yiraahdeen waa ku tumasho cad oo lagu tuntay xabad joojintii naga dhaxaysay laakiin annaga ilaa hadda xabad joojinta waa ilaalinaynaa laakiin waa in la ogaado waa yiraahdeen nimankaanu waxay rabaan inay waxay doonaan iska sameeyaan ma shaqaynayso Iiraan teedana waa dhimanta Iiraan meesha xabad iyo ka dhicinay Trump ku leeyahay meeshaan shalay dadii ku dishay Israa'iil laba qof waa noo soo dhawaadeen ciidankeena qatar galiyeen maxaa qatar galina adig gudihii wadan gudihiisa soo gashay 10 maartay kilomitir oo intaasoo kilomitir gudaha ku jirta oo xuduudka waxay tiri waxaan ka ilaalinaa dalkaygan ka ilaalinaa dalka xaqu yaala dhulkii Falastiin laga xoogay waxa dad marka carabtana laga wada qaat kuwan wuxuu in lagu darsadaa rabaa marka sheekada halkaas ay maraysaa haddaba qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa arin kale oo soo korortay saakay dhul gariiro waaweyn oo laba oo ku dhuftay dalka Venezuela iyo Japan sida la leeyahay haddaba qaybtan aalaaba waxaanu ku soo qaadanaa wararka cusub ee soo dhacay xaalad degdeg ah ayaa la geliyay dalka Venezuela haweeneyda Rodriguez la yiraahdo iyadoo madaxweynenimada si haysa markii madaxweynaheedii Trump uu ka haystay Venezuela ayaa waxay dadku ku tiri guryaha ka soo baxa xaaladdu marka aad ay u xuntaa le dhul gariirka ku dhuftay 7.2 iyo midka kale uu ku xijiyay 7.5 dhul gariir marka aad u daran waa dhul gariirka cabirkiisa waxa la yiraahdaa Richter la yiraahdaa markuu 6 ka bato ilaa 5 iyo kor u dhaafo waa halis marka hadda waxa leeyahay xisaab lama oga dadka dhintay laakiin kumanaan ayaa la saadaalinayaa inay dhinteen guryo badan ku baaba'een dad badanna ay wax ku noqdeen marka dadkaas iyaguna waxa ku dhacay dhul gariirkaas magaalada Caracas ee caasimadda iyo meelo kale oo wadanka ka tirsan iyo Japan meelo kamida isaguna marka intaas oo arimood ayaa la sheegayaa dhul gariirkaas oo khasaaro weyn geystay inkastoo ilaa hadda ay marka khasaaraha aan la ogeyn oo dadka burburka guryaha ay ku hoos jiraan marka waa arki doonaa wixii isaguna warkaas ka soo kordha haddaba wararkaas ayaa saaka ugu waaweynaa akhbaaraadka saaran caalamka barnaamijkaygii aan ku soo gudbinaynay warbixinadii ugu waaweynaa xaaladaha dunida gaar ahaan bariga dhexe inta ayaana ku soo gabagabeynaynaa like garay oo share garay barnaamijka hadaad cusubtaan subscribe-ka ka iloobi YouTube-ka Facebook-na follow garay inta aan mar kale barnaamijkan lamid ah ku kulmayno nabadgelyo